kulanti wacan asxaabe meel walba joogtaan kuna soo dhawaada kanaalka arrimaha fanka. maanta waxaan soo qaadan doonaa 10Ka Atoore ee ugu awooda badan fanka Hindiya. Shabakada Box Office India ayaa si rasmi ah u daabacday maqaalka sanadlaha ee awooda atooreyaasha Bollywoodka iyo darajooyinka la kala gaaray Star Power Ranking-ka. Haddaba maanta waxaan idiin haynaa 10Ka Atoore ee ugu awooda badan Star Power Ranking-ka. Salman Khan ayaa kaalinta koowaad kusii dhamaystay sanadkan Star Power Ranking-ka atooreyaasha, waana ka hor inta aan la sii daanin filimkiisa 10Ka 3. haddii 10Ka 3 guul weyn gaaro si wanaagsana ku furmo, hubaal waxa ahaan doonto in dhibciisa Star Power Ranking-ka sarkac hoogan ay sameyn doonaan. Kaalinta labaad waxaa ku jira Ranbir Kapoor sanadkan December 2019. sababtan waxay tahay ninkan dhibco badan ka haysto ama ka helay filimka Sanju, kaasoo tiyaatarada India la saaray 2018 xilli aan fasaxayn ayaana tiyaatarada la saaray filimkan. Dhibco waali ayuuna ka helay Ranbir Kapoor filimkan. 3 biloodba mar ayaa lagu dari jiray Star Power-kiisa. 3 bilood ee ugu dambeysay ilaa December 2019 laga gaaro dhibcii Ranbir uu ka helay filimka Sanju hore ugu shaqaystay ayaa lagu daray. sidaas awgeed wuxuuna galay kaalinta labaad. Akshay Kumar ayaa soo galay kaalinta saddexaad, waxaana macquul ahaan lahayd in Akshay Kumar kaalinta labaad soo galo sanadkan waa haddii Hustle 4 si waali ku furmi lahaa, laakiin Diwali nidaamsan kuma soo hagaagin. sidaa awgeed Hustle 4 si xadidan ayuu ku furmay, taasi oo sababtay in Akshay uu galo booska saddexaad, wuxuuna u qalmay booska labaad. Hrithik Roshan ayaa isna dhibco badan ka helay filimkiisa ugu dambeeyay ee War, wuxuuna iska guday dhibco deyn ah oo lagu lahaa misna uu lumiyay 6 bilood ee ugu dambeysay. sidoo kale Tiger Shroff ayaa isna dhibco fiican ka helay filimka ugu dambeeyay ee War. sidoo kale labada actor-ba waxa caawiyeen fiimadooda kala ah Super 30 iyo Student of the Year, kuwaasoo si adag ku bilowdeen ama ku furmeen, inkastoo Super 30 guul weyn gaaray. dhanka kale waxaa hoos dhac weyn ku yimaaday labada actor ee kala ah Shah Rukh Khan iyo Aamir Khan, waxaana ugu wacan in ay la yimaadeen aflaamo guuldareysteen. Aamir Khan 3 sano ee ugu dambeysay wuxuu la yimid hal filim, waana 10Ka Atoore, kaasoo guuldareystay, balse qaabku ku furmay oo wanaagsanaa ayaa Aamir Khan ka caawisay in uu kaalinta afraad galo. dhinaca kale Akshay Kumar iyo Ranbir Kapoor ayaa aflaamo waaweyn u diyaarsan sanada 2020, waxaana macquul ah labada midkood inuu hoggaanka awooda atooreyaasha la wareegi doono oo Salman Khan meesha laga saari karo, balse waxaa hubaal ah in 10 sano ee u dambeysay 2010 ilaa 2019 ee Salman Khan hoggaanka fanka Hindiya soo hayay kaalinta koowaadna ku dhameysan jiray. Haddaba waxaan soo qaadan doonaa kala sareynta awooda atooreyaasha. Koow waxaa ah Salman Khan, kaasoo helay 1630 dhibcood December 2019, horena waxa uu haystay 1842 dhibcood. Kaalinta labaad waxaa ku jira Ranbir Kapoor, kaasoo helay 630 dhibcood December 2019, horena waxa uu haystay 871 dhibcood. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira Akshay Kumar, kaasoo helay 685 dhibcood December 2019, horena wuxuu haystay 658 dhibcood. Aamir Khan ayaa soo galay kaalinta afraad, wuxuu helay 600 dhibcood December 2019, horena wuxuu haystay 1005 dhibcood. Tiger Shroff ayaa soo galay kaalinta shanaad, waxa uu helay 586 dhibcood December 2019, wuxuuna haystay hore 239 dhibcood. Kaalinta lixaad waxaa ku jira Ranveer Singh, kaasoo helay 567 dhibcood December 2019, horena waxa uu haystay 680 dhibcood. Kaalinta toddobaad waxaa ku jira Hrithik Roshan, kaasoo helay 522 dhibcood, horena wuxuu haystay 105 dhibcood December 2019. Ajay Devgan ayaa ku jira kaalinta sideedaad, 325 dhibcood ayuuna helay, horena waxa uu haystay 553 dhibcood December 2019. Kaalinta sagaalaad waxaa ku jira Shah Rukh Khan, kaasoo helay 155 dhibcood, horena uu haystay 337 dhibcood. Kaalinta tobanaad waxaa ku jira Farun Dhawan, kaasoo helay 45 dhibcood, horena uu haystay 156 dhibcood. Asxaabi waxaa halkaas noo eeg warbixinta maanta ku soo qaadanay 10Ka Atoore ugu awooda badan. Koowaad waxaa ah Salman Khan, waxaana ugu dambeeya Farun Dhawan. waxaan idin leeyahay maca salaama. Ciao.